wiil ayaa si lama filaan ah indhaha u kala qaaday, neeftii ayaana hal mar ku dhagtay jidhkiisu uu gariirayay, wadnihiisuna si xawli ah ayuu u garaacmayay. Waxa uu ku jiray meel aad u cidhiidhi ah, bir weyn oo aad u qabowna dhinac kasta ayaa kaga wareegsanayd, neefsashaduna way ku adkaatay. Xusuustiina waa ay ka tagatay, mana uu garanayn cidda uu yahay ama sida uu halkan ku yimid. Muddo yar kadib, sanduuqii birta ahaa ayaa bilaabay inuu si tartiib ah kor ugu kaco, cabsi ayaana qalbigiisa gashay. Markii sanduuqii istaagay, albaabkii ayaa furmay, iftiin xoog lehna ayaana indhihiisa ku dhacay. Isagoo wejiga qarinaya ayuu bannaanka u soo baxay. hortiisa waxaa taagnaa wiilal badan oo wada dayar ah. wejiyadoodu waxay muujinayeen feejignaan iyo khibrad nololeed. wiilashaas oo uu amiir u yahay wiil lagu magacaabi Gaalikaas oo go'an adag had iyo jeerna waxa uu jeclaa in taladiisa la maqlo. meesha uu yimid waxaa la yidhaahdaa Galeyd, dhul bannaan oo cagaaran oo leh guryo yaryar, beero iyo nolol u shaqaynaysa si nidaamsan, balse quruxdaas waxaa hareeraysay derbiyo waaweyn oo dhaadheer, kuwaas oo u muuqday kuwa aan lahayn meel laga baxo laguna magacaabo Mays. wiilka cusub waxaa loo sheegay in qof walba oo halkaas jooga uu ku yimid si la mid ah isaga. xusuusta dhammaantood waa laga tiray, qofna ma xasuusto noloshiisii hore. magaca uu keliya xasuusto waa Thomas, inkastoo uusan garanayn halka uu magacaas ugu baxay. Galeydka gudihiisa nolol adag ayaa ka jirtay, qof walbana shaqo gaar ah ayuu lahaa. shaqada ugu khatarsan waxay ahayd tan ordayaasha. wiilashaas ayaa maalin kasta gala Mayska ku yaala derbiyada gadaashooda. Maysku wuxuu ahaa dhisme ballaaran oo leh waddooyin isbeddela, gidaaro dhaadheer iyo sir aan dhammaad lahayn. habeenkii albaabada Mayska way xirmaan, qofkii ku harana ma badbaado. gudaha Mayska waxaa ku noolaa makhluuqyo naxdin leh oo la odhan jiray Greyfairies. waa makhluuqyo ka samaysan bir iyo hilib isku jira, codad cabsi lehna sameeya. sababtaas awgeed, ordayaashu waxay ku laabtaan Galeydka ka hor inta aysan qoraxdu dhicin. Thomas, inkastoo uu cusub yahay, haddana qalbigiisu ma deganayn. dareen qoto dheer ayaa ku jiray, kaas oo u sheegaya in Mayska iyo Galeydka aysan ahayn wax la iska dhisay. maalin maalmaha mid ka mid ah ranariska ayaa ku xanibmay Mayska xilli albaabadu ku dhow yihiin inay xirmaan. wiilashii kale way ka niyad jabeen inay caawiyaan iyagoo og khatarta jirta. Thomas, isaga oo aan wakhti u helin inuu ka fikiro, ayuu orod ku galay Mayska. tallaabadaas waxay jebisay xeerarkii Galeydka, waxayna u horseeday habeen mugdi iyo cabsi leh. habeenka Mayska wuxuu noqday mid qaylo iyo sawaxan ka soo baxayo. Thomas wuxuu indhihiisa ku arkay Greyfairies, wuxuuna la kulmay cabsi uu weligiis hore u arag. habeenkii oo dhan waxa ay la dagaalayeen Greyfairieskii. subaxdii markii albaabadu furmeen, Thomas iyo ordayaashii kale oo lagu magacaabo Miino iyo Albi waxayna dib ugu soo laabteen Galeydka. wixii maalintaas ka dambeeyey, Thomas looma arkayn wiil caadi ah. qaar waxay u arkayeen khatar, halka kuwa kalena u arkayeen rajo. maalmo kadib, sanduuqii ayaa mar kale soo muuqday, gabadh ayaana ka soo baxday, laguna magacaabo Teresa. imaanshaheedu wuxuu sababay isbeddel weyn. Maysku wuu sii xumaaday, Greyfairieskuna waxay bilaabeen inay Galeyd ka soo galaan. cabsi joogto ah ayaa ku fiday wiilasha dhexdooda, nidaamkii horena wuu burburay. Thomas iyo Teresana waxay si tartiib ah u ogaadeen in dhammaan wixii ay ku jireen ay ahaayeen tijaabo lagu cabirayo adkaysiga bini'aadamka. Galeydka iyo Mayska ma ahayn meel badbaado, balse waxay ahaayeen goob halgan, cabsi iyo dhimasho. baxsashadu ma ahayn dhammaad ee waxay ahayd bilow dhibaato ka sii. maalmo yar kadib wixii ka dhacay habeenkii Mayska, Galeydka waxaa ku faafay aamusan culus. nidaamkii hore ee deganaa wuu daciifay, kalsoonidii dhex taallayna way dilaacday. Thomas mar dambe looma arkin wiil cusub oo caadi ah, balse waxa uu noqday qof hadal iyo muranba keena. ordayaashii ayaa bilaabay inay si gaar ah u eegaan. qaar waxay u arkeen mid halis gelinaya noloshooda, qaar kalena waxay u arkayeen geesinimo aan caadi ahayn. inkastoo ay kala aragti duwanaayeen, haddana hal shay ayaa la wada ogaa: wixii dhacay lama tirtiri karo. Thomas waxa uu bilaabay inuu si dhow ula socdo ordayaasha. maalin kasta subax hore ayay u baxaan, iyagoo ku hubaysan qalab fudud iyo xusuus maskaxeed oo waddooyinka Mayska. marka albaabada waaweyn furmaan, gidaaradu si tartiib ah ayay isu kala qaadaan, cod bir ahna wuu yeeraa. markaas ayay Mayska galaan, iyagoo og in qalad yar uu keeni karo dhimasho. Maysku ma aha mid la saadaalin karo. waddooyinku maalin walba way isbeddelaan, derbiyo horay u furnaa ayaana isxira. Thomas wuxuu si qoto dheer u dareemayay in Maysku leeyahay nidaam qarsoon, mid aan weli la fahmin. habeen kasta sawiro googoon ayaa maskaxdiisa ku soo noqonayay, qolal cadcad, nalal xooggan iyo dad aan wejiyadooda si buuxda loo arki karin. maalin ka mid ah, Thomas waxaa loo oggolaaday inuu la baxo ordayaasha. inkastoo ay ka cagajiidayeen, haddana xaaladda Galeydka ku soo korortay awgeed way aqbaleen. markuu cagta dhigay gudaha Mayska, qabow gaar ah ayaa jidhkiisa dhex maray. orodku ma ahayn mid sahlan, waddooyin qaloocan iyo goobo lagu xasuusto khataraha ayaa ka buuxay. ordayaashu si degdeg ah ayay u dhaqaaqayeen, Thomasna wuu la socday, inkastoo neeftu ku adkaanaysay. wakhtigu waa cadowga ugu weyn, waayo qoraxdu markay dhacdo, albaabadu way xirmaan.